السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan salaamayaa madaxa hadaf iyo saxaafadda iyo beeraleyda gobolka oo meelo kala duwan ka yimi sanaanka bacdi markaan warbixin ka siiyo si guud gobolka Sanaag wuxuu ka mid yahay gobolada ugu ballaaca weyn gobolada Puntland waana gobol ku habboon wax soo saarka beeraha guud ahaan tirada beeraha tirkoobkan ugu dambeysay wuxuu ahaa 106 beerood inkastoo caqabado jireen duruufo waxbarasho caafimaad dad badan ay ka soo xireen magaalooyinka ku soo guureen haddana tirkoobka ugu dambeysay aniga intaas uu ahaa runtii wax badan baa ka baxa geed maroodka markaynu bunka cambaha muuska babayga liimaha noocyadooda kala duwan tufaaxa farsuuga wax badan oo geed marooda ka baxa qudaarta cagaaran iyadana baradhada kaabashka salarka badruurka tamaandhada iyo wixii lamid ah baa ka baxa waxaa kaloo ka baxa faraleyda geleyda digirta haruurka sisinta intaaba way ka baxaan timirtu way ka baxday geedweyntii ku jirtay dadka beeraleyda gobolka Sanaag waxa weeye beeraha gobolka Sanaag runtii waxa la aasaasay xilligii kumiisuu dalka joogay beeralahaasi baa jiray oo 1940kii waxay hirgaleen xilligii dowladda dhexe Soomaaliya waxa la sii xoojiyay intii dowladda burburtay beero badan baa ku soo kordhay dadku iyaga isku tashaday iyaga wax qabsaday guud ahaan gobolku waxa loo qaybiyaa 4 nooc dhuleed baa loo qaybiyaa almadow oo buraha xeeb kabifaali oo waqooyigana iyo sool intaba beeraha laga sameeyay beeruhu aad bay ugu fiicneen ciidoodu aad bay u fiicantahay runtii waa gobol aad wax soo saarka ugu fiican waxa jira hadda caqabada ma gudbaa waxa ka jira caqabado fara badan markaan soo qaato inta ugu muhiimsan waxa ka mid ah biyaha oo asaas oo nolosha noolaha beeruhu ma haystaan biyo ku filan jidadka oo ah kaabayaasha dhaqaalaha waxa dayactir u baahan ama xaniban isu socodkii beeraha iyo magaalooyinka aad bay baabuurtu dib ugu qabaan qudaarta sida balbeelmada oo kale iyo waxay ku qasaareen beeraha dhexdooda lagama soo qaadan karo caqabadaha waxa ka mid ah siirkii agabkii beeraha oo sida cagafka ma haystaan tababaro ma helaan aqoon ku filan oo beeraha ma lama siin inta badan ma qaadanba inta kulba anu gobolka joogay runtii waxyaabo badan oo caqabada baa iska jira waa la socotaan dalka waxa ka jiray abaaro fara badan oo soo noqnoqonayay oo isbedelka cimiladu keentay waxa jiray ayax naafiyay beeraha ragaadiyay waxa jira cayayaano fara badan oo waxa soo dhan u baahan in la tacaalo waxa weeye beeraleydu intii karaankooda qaban karayeen way qabsadeen laakiin marnaba ma helin fursad dhiirigelin wax loogu qabanayo marka caqabadu aad bay u badan yihiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa biyaha beeruhu haddii biyo haysan dee waxa weeye ma shaqaynayaan sida la socotaana waxa weeye ceelashii roobkii way yaraadeen waxa jira beero gacanta lagu qoday oo gacan qoday markii biyihii yaraadeen oo raxmadii yaraatay biyo hoos bay u dhaceen matooradii yareeyay way soo qaadi kari waayeen soolarana ma haystaan inta badani marka caqabada xagga biyaha ugu muhiimsan waxa ku xiga jidadka oo baahan in la dayactiro waxa ku xiga beeraha oo dadkan ay u fashaan sidii farsamadii horeeto farsamada casriga in dadka la tababaro oo aqoontooda kor loo qaado waxa weeye iyana waa muhiim waxa dhacday hadda sanadka in
midigal oo kaleeto ciidu ku sumowday buufintay beeraha buufinayeen nina ku dhintay labana ku sigteen waxa keenay aqoon la'aan in laga tababaro sida xilliyada beeraha loo buufiyo iyo qofku inuu xagga dabeesha ka maro waxa oo dhan waxay u baahan yihiin in tababar la siiyo beeraha farsamadoodii iyo aqoontoodii hore unbay ku shaqeeyaan marka caqabadu waa badan yihiin